cid laga aqbalaya ma jirto inay barahooda bulshada ku soo qorto barabogaando ay ku saacidayso khawaarijta marnaba ma aqbalayno wiil xamar jooga oo hotel ku dhex fadhiya oo waxaan macno lahayn ka soo qaado ee shacabka caasimada ku nool oo qalqal galiyo lagama yeelaaye asaga hadda dhiig kama socdee dhiidan ka keenayna qol mugdiyan ku xirayna insha Allah taala maanta maalinay ka ammaan badan tahay caasimada Soomaaliya ma jirto maamulka iyo shacabka degmada Hodan waxaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay meeshaan afruudareedka ugu sameeyeen una muujiyeen runtii wanaag iyo ammaan inay tahay caasimadu runtii waa adkeed in meel wada ah dad gaaraya 1,000 qofood inay ku wada afuraan inta isku yimaadaan si nabada inta ku afuraan inay ku kala tagaan sanadyo ka hor waa adkeed alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan dhamaanteena aan ilaahay ku shukrino ugana xamdino amaanka caasimada ka jira waxaan inta raacinayaa oo la dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaasha inaysan qayb ka noqon dagaalka khawaarijta lagu jiro cadawga khawaarijta ee gaabiska ee aad la socotaan inay rafadkii ugu dambeeyay ku jiraan insha Allah taala aan rajaynayno in meelaha ay isku damcinayaan hadda inay soo galaan damcinayaan inta laga saaro kuwa ay asalka u ahaana in laga saari doono aan rajo ka qabno oo shalay ceeldheer ayagoo joogay masaajid cali guud maanta xaradheere iyo ceeldheer la joogo aad la socotaan inaan la garab siinin runtii caasimadu waa caasimad amaana marnaba wax ammaan darraa kama jiraan haddaad xasuusataan ama dib u xasuusataanna dadka reer Muqdisho ama ummadda Soomaaliyeedna maanta maalinay caasimada Soomaaliya ka ammaan badan tahay ma jirto maanta maalinay ka ammaan badan tahay caasimada Soomaaliya ma jirto waa ilaahay maadiis alxamdulillah waxay ku timid dadaalka shacabka Soomaaliyeed ee khawaarijta kula dagaalamaya miyiga fog oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo Mudug iyo Puntland buuraha Puntland ee Daacish kula dagaalamaya ku timid dadaalkaas ay ku timid shacabka Soomaaliyeed ee meel kasta oo joogaan ay khawaarijta kula dagaalamayaan waxay ku timid dadaal ay bixiyeen iyo isku xiraan hay'adaha amniga caasimada iyo shacabka caasimada ku nool halkaasaan waxaan rabnaa inaan ka sii socono wiilasha yaryar ee baraha bulshada wax ku qoro waxaan mar kale leeyahay si hoosan hadeed halkaan ugu arko waa u sheegay khawaarijtaad qayb ka noqonaysaa haddii aad baabuuniso waxaan jirin iyo waxay sameeyeen wax lagu daraba aad sheegtaa qayba ka tahay waxa laga rabaa shacabka inay ka waaniyaan wiilashaas inay laagta kala laabtaan inay ku canaantaan wixii inta soo gudbana annaga xireenoo diyaar waa inaan xirno qofka lacagta siinaya iyo qofka barabagaandada u fidinaya waa isku mid kuwa dhahaya oo dadka ka gadaya oo perception wadaya xamar oo caasimada maanta ay taa maalintii ugu ammaanka bandeed waa ugu ammaan daran tahay yey noo sheegayaan shalay markii qaraxyadu dhacaayeen oo soobo waxa aragta ku dhimanayeen oo dhimashada warqad dhacay dadkii u niyad samaa ee dhiirana ee samrayay ee adkaysanayay ee macnaha lahaa ee aaminsanaa in ay inta ka kabtaan khawaarijtan iska dhiciyaan ee Soomaaliyeed ee guryahoodii iyo daaroodii dhistay ee jooga haddana shacabkii ammaankiina lana ilaalinaya lana difaacanaya waxa jooga saraakiishii iyo askartii iyo shacabkii sida hadda maanta ay tahay ka dhigay waxaan aaminsanahay cadawga khawaarijta mar walba dhagar waa wadaan waa isku dayayaan inay amniga carqaladayaan waa isku dayayaan inay wax sameeyaan laakiin macnaheedu maahan haddii xataa ay wax sameeyaan inaysan xamar ammaan ahayn xamar taariikhay lahayd caasimadan ay soo martay shalay oo aad ogeydeen oo ka warqabteen maanta ay tahay maalintii ugu fiicneed in dadka qalqal galiya waa fal dambiyeed cid laga aqbalaya ma jirto inay barahooda bulshada ku soo qorto barabogaando ay ku saacidayso khawaarijta marnaba ma aqbalayno wixii xoga iyo wixii macluumaad oo dawladnimada dhisay qofku ha gudbiyo ha ka hadlo laakiin barabogaando khawaarijta ay soo dusisay oo dadka shacabka caasimada ku nool rabo in lagu barabagaamo qof laga yeelaya ma jirto askara duurka u jiifta wiilada dalkan iyo dadkan difaacaya kuwa ku dhimanaya kuwa naftooda u huray kuwa soonka maanta ku afuraya jiidaha kuwa ka dagaalamaya kuwa ku dhiig baxaya in wiil xamar jooga oo hotel ku dhex fadhiya
ووحان معنا لهين كسو قادو شعبك عاصمة كنو لا أقل قلقليو لقما يلايه أساق هذا دي كما سعودية دي ذنك كيننا قول مقديان كحرينا إن شاء الله تعالى مركلة وحان لنا عاصمة وأمان شعبك سومالينا وحان لنا صلاة مركز سود كتان إلهي وحا uga baridaan shacabkan ee dalkan dadkan Soomaaliyeed inuu qulubtooda mid ka dhigo dalkan inuu amni ka dhigo qawaarij cadawga ummadda Soomaaliyeed ee wax laga galabsada aan la arag ee nalaynaysa ee dhibaatada wada ee nala jixil qaraxa ee nala jixil qaxa ee nala jixil dhibaatada ilaahay inuu naga qabto dadka reer Muqdisho qaraxna waa yaqaaniin qaxna waa yaqaaniin qax iyo qarax midna ma rabaan amniye heesaan amaani rabaan amaanka yaysan wiilal yar waxay rabaan idin sheegin amaan la isku haleyn kara haysataan insha Allah taala kuwa raba inay wax sameeyaan waxaan leenahay adinka ilaahay idinku celsho waxaan rajaynaynaa oo ku rajaweynahay sidii loo soo qabtay oo kale in loo soo qabto qawaarijta sidii shaa loo soo qabto in loo soo qabto inay soo wax dhicina waan ka shaqeynaynaa haday dhacaan waxaan ka daba tagaynaa biidnillaahi albaari guuleystan leenahay